iska daa dawladda tani mashaariic ay gobolkan ka fulisay afar hayood baa mandaqadan ka shaqayn jiray waxa weeye afartii xafiisadoodii tii u dambeysay asbuucan baa la xiray maxay hay'addu magaalada ka shaqaynaysaa shaqadii hadda ka dhamaatay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu yeelanaynaa dood kooban oo u dhaxayn doonta dhalinyarada deegaanka waxaana kala jooga Maxamed Axmed Salaad Cagta iyo Maxamed Cabdi Shire Naato aynu insha Allah doodan dhex dhigi doona oo ku saabsan sidaba u aragtaa 35 mashruuc oo ay soo jeedisay wasaaradda qorsheyntu ayna xustay inay ka socdaan deegaanka shanta mashruuc iyo sida ay deegaanka muhiim u yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan guda galo dooda halkan uga qayb galiya saaxiibkay Maxamed Cabdi Shire Naato horta Maxamed waxa jira mashruucyo kala gedisan oo dhanka wacyigelinta dhanka caafimaadka dhanka horumarinta bulshada mashaariicdaas intooda badan way ka socdaan gobolka anagoo hadda golaha deegaanka ee degmada Baran waxay wadaan mashruuc ballaaran oo ay hirgelinayso Islamic Relief mashruucaas oo in magaalada loo sameeyo saribad weyn oo ku ganacsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada mashruucaas waad ogtahay lacag badan baa ku baxday meel gabagaba abu maraya waa qayb kamid ah mashaariicda la sheegay wasaaradda iyo dawladda Puntland waxay sheegtay 35 mashruuc inay ka socdaan deegaankan runtii waxa nasiib darro ah in maanta mashaariicdii lagu tilmaamayo waxyaalaha emergency aid-ka ahaa oo suuliyaashii la qodayay iskuul hal qol lagu daray MCH mashruuc ah oo socda oo gobolkan muuqdo maanta ka socda waxa jira dhismaha saylad halka ka socota maxamed horta waxaan isir gobolka Sanaag waxa uu taqaanaa degmada Baran kaliya gobolku waxa uu leeyahay degmooyin tiro badan degmooyinkan intooda badan mashaariic ka socda tan wasaaradda qorsheyntu ay soo bandhigtayna waxa fiicnaan lahayd inaynan degdegin wasaaradda inuu ka sugno meelaha ay ka socdaan iyo mashaariicda u socdaan mashaariicda aynu ka hadlayno waxa weeye waa mashaariicda huge project ee gobolada Soomaaliya ka socda oo kale qodobkan aan ku sheegaya maalin dhawto doorasho ka dhacday halkan dadku codkooda ay dhiibteen rabitaankooda ay muujiyeen adaa kamid ah dadkii la doortay iska daa dawladdu Puntland inay waxa weeye dadkii la doortay inay wax qabtaan ilaa hadda tababar leedima sameeynin ilaa hadda kab leedima siin miisaaniyada kab kuma leedin mushahar ma leedin xuquuq ma leedin horta waxa mushkilada sida qofku hadii aanu arag wanaaga socda oo kaliya oo arko xumaanta waa qof waa dhibaato jirta oo in badan Soomaalida lagu yaqaano dawladdu gobolka waxay ka wadaa mashaariicyo tiro badan iyadoo mas'uul ah guud ahaan Puntland ayaa haddana waxay xil gaar iska saartay gobolka Sanaag tusaale hadaan u soo qaadayno gobolkan mashaariicda ka socda waxa kamid ah mashruucii ugu weynaa ee giyiga Soomaaliyeed laga wado maqan saaxiibku wuxuu arki waayay waa mashruuca wadada Ceeldahar Ceerigaabo kaasoo isaga gudba laba gobol hadda oo gobolka Bari oo ka soo bilaamay iyo gobolka Sanaag oo ujeedku waa in la gaarsiiyo saan ognahay Maxamed mashruucaasi meel fiican buu marayaa dawladdu mashruucaasi waxay ka geysatay gacan ballaaran oo waxay samaysay wax kasta oo karaankeeda ah iyadoo laga rabay bulshada deegaanka inay iyaguna qaybtooda qaataan ayaa halka waxa ka jirta in bulshadu ayna wali si 100% uga qayb qaadan hadlimeeno mashruucyadan isku dhiskaha oo dadku iska wax qabyada ku dhisanayeen oo cashuurta dadweynaha oo wadada 10 sanadood 30 kiiloomitir ah ay gala hadlayso waxaan ka hadlaynaa 35 mashruuc ee qorsheyntu sheegtay oo hay'adaha caalamiga ee deeq-bixiyaashu bixinayeen oo gobolkan ka socda 1 iyo 2 iyo 3 ay sheega mashruuc haday noqdaan kuwa ay hirgelinayso xukuumaddu iyo kuwa hay'adaha laga helaba labada mid kasta oo mashruuc marka waxa soo mashaariic haday ku imanayaan systemka dawladnimada waxa waajibna ku inaynu la shaqeyno dawladda oo aynu ka shaqeyno systemka dawladnimada systemka maamul baahinta si aynu bulshadeena u gaarsiino ilaa meesha ugu hooseysa ee adeegyada mashaariicdaas oo dhan oo siin ognahay magaca dawladeed bay ku fulayaan oo magaca dawladeed bay ku socdaan hadii aan dawladda meesha ka jirin wax mashruuc ma yimaadeen warnageysto Maxamed waxa weeye hadalkayga dhexgelinay iska daa dawladda tani mashaariic ay gobolkan ka fulisay afar hayood baa mandaqadan ka shaqayn jiray waxa weeye afartii xafiisadoodii tii u dambeysay asbuucan baa la xiray waa actin waa care waa shelcon waa tadaamun maxamed tan hay'aduhu de walaal waxay ku shaqeeyaan mashaariic mataqaanaa qorshahooda waa mashaariicdaasi inta ay socoto inay deegaanka ka hawlgalaan hadii mashruuc dhamaado hay'adu waa guuraysaa Baran kaliya ma magaalada hay'aduhu ka guureenay waxa jira hay'ad kasta meesha ay ka shaqeynaysay marka uu mashruucu ka dhamaado de shaqadaas waa dhamaatay maxay hay'adu magaalada ka sii qabanaysaa shaqadii hadda ka dhamaatay waxa weeye xisaab xumo gobolna 25 milyan ku bixinaysa gobolna waxa weeye $1 ku bixinayn waxa weeye nidaamkeeda qorsheyntu aan fadhiyin waxaan ku sheegayaa 26 sanadood ee Puntland jirtay inay laamiga ka degi weydo oo 3 magaalo dhaaf weydo ma aha dadku inay matalaad waxa weeye waa dawlad xumo meesha ka jirta oo la doonayo inay dadku ka baraarugaan maanta waxa weeye hadii ay sidatan ku sii socoto dadku waxa weeye isku tashi bay isugu imanayaan oo waa ka tashanayaan
dadka dawladda ku metela gobolkan gaar ahaan xukuumadda haddii ay ka gaabiyeen inay ka shaqeeyaan horumarka gobolka in eedaa cid kale la saaro maaha dawladda in lagu gafana maaha marka taas waxay muujinaysaa haddii sideedaba meesha laga waayo cid ku metasha in ay dhib adag ugu tahay dadka dawladda inay ku metela markay golaha tagaan oo miisaska fagaaraha wada fadhiya ay fadhiyaan waa inay cadeeyaan rabitaanka bulshadooda iyo baahiyaha bulshadooda haddii wasiirkii ama qofkii xukuumadda ku jiray ama qofkii deegaanka oo ka yimi oo dawladda metelayay aanu cadeyn karin baahida dadkiisa waa mushkiladina haysata waxyaalahan hadda maasha ka socda waa waxyaalaha keenaya in waxa weeye dadku su'aalo isweydiiyaan 26 sano maxaa qabsoomay oo maanta ay dib u fakaraan marka horeer inagu dispute area inaga iskelinayna dhul lagu muransan yahay inaga iskelinayna cid ina gelinaysa ma jirto waxa kale oo ina muhiim ah in la naga helo inaynu wax aynu inagu rabno cadeyno waxyaabahaas dhan waxa leenaga doonayaa inaynu inagu dadka aynu dawladda u dirsanay la xisaabtano laakiin haddaynu qof maalin la dirsaday inaan dib ula hadlin 5 sano kadib mid kale la keeno waligan qeyladaasna ku sii jireena waxa jirtay waqtigii doorashada laga soo baxay inaanu sameynay xog ururin oo ay ka qayb qaateen 395 qof xog ururinta waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dadka ka soo baxay waxa ka mid ahaa dadkani sida ay u jeclaysanayeen in uu deegaankoodu ka baxo shaabadii muddada badan haysatay ee ahayd dispute area-da bulshadu waxa ay soo bandhigtay rabitaankooda bulshadu waxa ay soo bandhigtay inaanay u sii dul qaadan karin in muddo badan ay ku sii jiraan category-ga hoos u dhigay ama wax badan oo xaqooda ah lagu duudsiiyay waxyaabaha runtii soo baxay intii aanu ku guda jirnay xog ururinta waxa ka mid ahaa dadku inay iyagu is abaabulayeen iyagu inay dhaqaalahooda la baxayeen goobaha codbixinta oo ilaa 60 kilomitir qofka u jirtay goobta codbixinta inuu qofku isagu tagayay taasoo dhan waxay u sameynayeen waxay ahayd inay helaan xuquuqdooda ayna ka baxaan dispute area-da